شديدة وعنيه قاب كذا لو دقي اتما حيدا يركيو سيدا في أرحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وعنا وناكسن مركلي فيديو عسب جنرال كاد نقل السعتان وحباب فامل أنا وأم حسين صور وهذا مال وناكسن هبين وناكسن صبح وناكسن قلب وناكسن عصر وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتك وعسب صور وهذا أصحابته اللي جوت صدق لصور وهذا لما أنتم بسووا هذا إن شاء الله ومركلي قصة فضلا قصة كوردا جنرال وعسب سبسكرايب نصار قبل الكفر لايك شير كومنت صاحب هذا الوداع هذا أم سنتين إن سبسكرايب تكون سارين هاي لايك تلنا ورب إن شاء الله هذا ما سنتين لما أنتم به dhammaantiin waa idin wada jeclahay insha Allah qisadeena maanta waxaan ku aadeynaa dalka Mareykanka san horin kugu sheegay Mareykanka waxaan ka dhacay qisooyin aad u leeyaab badan marka insha Allah qisadeena waa qis iska yar yalla keen insha Allah Mareykan soo dhaweeya family xabaabna idin soo socda insha Allah soo dhaweeya qisadan waxay ku saabsan tahay hooyo lagu magacaabo Marin waxay ahayd hooyo leh hal wiil ayadii odageedii iyo wiilkeeda waxay ku wada noolaayeen magaalo ka tirsan Texas marka waxa dhacday in wax iswiilka yar iskuul oo dhiganayay asigoo 7 jir waxa dhacday maalin kasta inuu banaanka soo dheelo maalin kasta markeen cunuga in la dharbaaxo oo daaminkiisa ay guduudeen aan la aqoon wax dharbaaxo maalintii dambe waxa dhacday in uu ilmihi yara banaanka uu aado banaanka soo dheelay kadib markuu dheesh ka soo laabtay guriga imaaday haddana banaanka aaday wax kale ka doontay banaanka markuu aado markaana waa marka sheekada meesha qisada ay ka bilaabmayso meesha waaye waxa dhacday in wiilka yara in la arkay asigoo meed ah oo yaalo guriga iridiisa markii oo la soo kala cararo oo jaarkii iyo dadka dhan ay soo wada carareen cunuga dhaqaatiirta loo geeyay markii la baaray waxa la yiri cunuga kaaga daranay jirkiisa dhan wuu qoynaa asiga dhan biyo u ahay markii dhaqaatiirta ay baaran waxay yiraahdeen cunugan biyo lagu dilay waan kaasaha isla markiiba baaritaan la sameeyay barkad meesha ku taal waxa laga arkay mid kamid ah kabihiisa ku jiro labada kabood oo gishna kor kamid ah laga arkay iyo jaakad oo xilligaas gishna laga arkay isla markii barkadii la baaray wax kale waa laga waayay hooyadii aabi waxa u bilowday maror dilaa aad u qaracmeen yani waxa u bilowday jawi kale muruga halka cunug adoo hal cunug qabtay hadan halkaagu cunug hadii uu ka dhintay yani xanuun iyo dhibaato leedahay hooyadii aabihii isla markaa waxay go'aansay in nin kasta wadadiisa raacdo oo nolosha meesha ku soo dhamaato 2 sano kadib geeridii wiilka hooyadii aabi way kala tageen muddo kadib waxa dhacday hooyada xooga ay noqotay laba qalbi wali yani ay waalatay soo markas waxay bilaawday inay guriga timaado guriga dhinacyadiisa isku wareegto maalintii dambe sheekada waxay dhacday 2009kii maalintii dambe waxa dhacday markii 2 sano amal guriga kor wareegaysay maalintii dambe waxa dhacday in ayay la qaaday oo dadka xaafadda lacag isku dareen oo la geeyay dhakhtarka dhimirka markii la geeyay ilaa 6 bilood ku jirtay 6 bilood kadib way soo reesatay way ka soo baxday dhakhtarka dhimirka markay ka soo baxay marka haddana waxay ka bilowday meeshii ka bilowday guriga waxay bilowday inuu kor wareegto marka waa markii la weynaay hooyada waa la waayay marka si uu kor wareegayso markii dambe hal maalin ayada dhan la waayay waxa dhacday in bil kadib markii oo hooyada la waayay bil kadib booliska la soo wacay number laga soo wacay numberka markay qabteen marka qof la hadlay waayeen booliska halo leeyahay booliska marka gurmadka degdeg wax la hadlay waayeen booliska marka waxay yiraahdeen qofkan wuxuu ku jiraa dhib uu ku jiraa waxa laga yaabaa in naftiisa halis ku jirto marka waa in numberkan meesha laga soo diray waa in la raadiyaa oo maxay la daba galaa numberka meesha laga soo diray la arkay waa la raacay waa la tay gurigi booliska marka waxay aaminaan ayaga aan qofka inuu dhibaato ku jiro uu rabo in la caawiyo saas daraadeed marka la rabo in qofka dilaaga ama qofka tuuga oo gurigan ku jiro in loo qorto guriga tageen guriga wiilka yara oo reerkiisa ay deganaayeen ay tageen guriga booliska markay tageen waxyaabo far badan isbedelo waaweyn ay ka arkeen sida gurigan inuu caareystay caarameens wasaq inuu wasaqoobay oo alaabta bus yeelatay oo guriga dhan uskag noqday soo marka way yaabeen booliska hore u sii galeen waxay arkeen marka qolalka guriga qol ka duwan oo si qaas ah yani oo meel gooni ku yaal waa qolka jiifka ee hooyadii
iyo aabi wiilka isla markii booliska markay qolka galeen waxay arkeen waxyaabo oo kale waxay arkeen hooyadii wiilka yar dhashay oo meyd ah oo kursi ku fadhiso warqad la qoray oo markaas la qoro oo isla saacadaas yani maalintaas la soo wacay booliska ku tiimbareysan waxay kaloo arkeen waxyaabo kale qolka markay galeen booliska mid kastaba naqaskee ku dhigi waa la ciijiyaba aad u qayliyeen taleefanka markaas waa laga soo wacay oo mid kasta markii oo la ceejina boolisku argagaxeen banaanka u soo carareen taleefankii markii la fiiri waa taleefankan wax laga soo wacay way carareen way cabsadeen isla markii waxa imaada hadana ciidan kale gurmada imaaday ambalaasi wax sala keenay hooyada hala taabto markii la maagayba waa la taaban waaye oo gacanta dhinaceeda yani qofka dhinaceedaba aadaba gacmii dhanba way maaseenayaan soo marka waxa dhacday in askari kasta oo gurigaas soo galo irid ka soo galo in naqaska lagu dhajinayo askarigan u baahnaanayo yani xaalad degdeg u galayo emergency u baahnaanayo way bixin waayeen booliska baabkii waxaa la waayay si meydkaas looga soo bixiyo guriga qof kasta u dhawaado meydka qaadis dhaho gacanta way maaseynaysaa neeftan way ku dhagaysaa markii waxaa dhacday marka in dhaqaatiirta imaadeen dhaqaatiirtan ayaga maageen taabta way taaban way u suurtagali weysay waxaa la wacay ninka guriga lahay waxaa la yiri xalkeen wuxuu yiri oo waxaa jira dad oo jinniyada cudub billahi min shaytaan rajiim jinniyada waxaas oo yaqaano dadkaas la wacaaso marka dadkaas imaanayo dadkaas sameeynayo marka ninka oo jinniyaha tabcay la keenay ninka jinniyaha tabcay inta level qabta cirka la geeyo ogtiino أنا قصدي أرد هذا أوجيابه أو شيء كوين أدول يا بدن أجوجرو سامر كأنك هو أرجع وحو يرى إنه وحن كسر وحن هنا جرو أن كجرا نينك أو وح إنه سميلو بتلقى الوا عرّة مرك بهشان أو دول كل جزء من هذا عقف مالها عقف في بورس وحق أنس إن جرو قيبت كذلك بيسوي جبين أساس درادة ميت كلابح because قف جرو قال مرك نقص كل جرو لكن نعقل هذي اللي بيسوي دمية أو بينو نقنا وحق أساس درادة إن لقاضون sidii ala sameeyay way soo bixiyeen meedku waa la soo bixiyay meedku waa la duugay meedki markii la duugo marka ninka guriga lahaa wuxuu maagay gado nimanka oo ka gadanay guriga markay imaadeen guriga nimanka naftirkooda yaabna qasku ku dhago oo ayagoo waxay arkeen bin dhacdeenayo ilaa ay haddana gurigaas qof gadata lama arkin oo sheekadiis cabsiyo noqotay dalka Mareykanka oo dhan laga ogahay qof xitaa dadkii oo gurigaas hareerihiis deganaa waxay yiraahdeen in haweenku yani habeenkii waxa ka baxday shanqar aad u badan habeenkii oo dhan waxa ka baxay music habeenkii oo dhan waxa ka baxay qaylo nooc kale ah yani dadka xaafad gurigaas ku hareereysnaayeen waxay yiraahdeen in habeenkii sorry habeenkii wax gurigan ka jira yani waa wax kale oo aanan weligeyn arkin oo aanan maqlin soo marka mawjado kale gurigan ka jira saas daraadeed marka dadkii deegaanka degan xitaa way ka cabsadeen oo ilaa ay guriga ku hareeraysan afar guri oo guriga ku dhagan waa laga kala guuro dadka cabsi naftooda uga cabsadeen waa laga kala tagay ilaa ay haddana ma jirto in qof gurigaas u soo bareerto oo tir anaa gadanayo xitaa shirkad ba xitaa Allah ka dhigay qof kasta marka guriga ay gaarkiis imaado naqaska lagu dhajinaa tan kale markii oo habeenkii la gaaray yani ilaa 7 fiidnimo markii la gaaro guriga waxa ka bilaabanaysa dhabaq fara badan waxa ka baxay leerar kala nooc ah wax yani qof bini aadan uu san qiyaasi karin habeen waxa dhacday markii oo habeenada kamid markii dadka dariska soo waceen booliska ay raadeen gurigan wax olol camal ah ka baxayo oo yani qaybta gadaal markay ka sameeyeen isla markiiba qaybta gadaal qaybi hore dhisan soo ma halka qolay gadaal ka dumay laakiin qaybi hore waxa la yiraahdaa guriga qaaca ka baxay iyo ololaha ka baxay isla markii dibdimiska imaadeen dibdimiska markay imaadeen holac ay qaacdan waxaas dhan way waayeen guriga normal ah waxay u imaadeen oo caadi ah oo qaybta gadaal soo uga jibiyeen ahaa soo marka ilaa ay hadda dadkii Mareykanka oo gobolkaas deganaa waxay la noqotay calaamad su'aal gurigaas hareerihiis guriga yaal walaa kala carar qof degan ma lahan aabihii iyo wiilkiisaas ku dhintay islaantiis way kala tageen markii dambana way geeriyootay qisada gurigaas ku dhintay marka waxaan isdhahay asxaabteeda la wadaag dad badan waxay igu soo qoreen Instagram-ka dhanka qisooyinka oo cabsida noo baday inkastoo aniga qisooyinka cabsida naftirkeyga aaba ka cabsadabo oo aanan jeclan haddana waxaan isdhahay dadka asxaabtaada qanci u sameey insha Allah
marka in haddii ay jeceshay qisooyin kale oo saan u cabsiya waa idin soo badinaad bilaa yiraahdo commentiga igu soo qora qofkii ka hela oo rab inaan soo badiyo commentiga ii soo qoro dhammaantiin aad u mahadsantihiin channelku waa xabaab anigu umseen channel subscribe noo saar like share comment subscribe haduu ku seen like tira nagu reeb waa mahadsantiin dhammaantiinba guush wax yar aan uga dhiman insha Allah guush hana la gaarsiiyo guushayda waa guushiin ma fahanteen insha Allah dhammaantiin one love adina dhammaantiin waa idin wada jecelahay de hala share gareeyo videoga hala share gareeyo insha Allah aad u mahadsantiin dhammaantiin one love